gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Saylac Xuseen Iidle Barkhadle oo ay wehelinayeen mas'uuliyiin ka socday maamulka Saylac iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Saylac ayaa deeq gurmad ah gaarsiiyay dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay roobabkii dabaylaha watay ee bishan kowdeedii ka dhacay buuraleyda degmada Saylac gaar ahaan deegaanka tuulada Fiqiyaadan deegaankaasi oo duufaankii roobku uu ku dilay hal qof qaar kalena uu ku dhaawacay isla markaana xaruntii caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka uu dumiyay roobkaasi sidoo kalena dugsi ku yaalay deegaankaasi uu jiingada ka qaaday roobabka ka daay deegaankaasi deeqda gurmadka ay gaadhay deegaanka ayaa iskugu jirtay bacaha hoyga laga dhigto timir bariis iyo gargaar kale gudoomiyaha degmada Saylac Xuseen Iidle Barkhadle ayaa duqeyda deegaanka ku wareejiyay caawimada gurmadka ee uu deegaankaasi soo gaarsiiyay waxaan gudoomiyuhu baaq u diray hay'adaha gargaarka iyo maamulka Soomaaliland inay kaalmo la soo gaaraan dadkaasi ay waxyeeleeyeen roobabku halkana joogna waa fuqaadan wixii ku dhacay sida aqalada noo muuqda oo xagga Ilaahay ka yimid doorta aan waxba inoo geysan wixii alla keenay alxamdulillah dhahalay Ilaahay baa garanaya wixii noo khayroon Ilaahay baa garanaya Ilaahay baa tan keenay oo Ilaahay mahad ha gaadho nimcada ay nimco walba nastaan baa la leeyahay annagu ka degmahan gurmadkii koobaad iminka aan nimidnay iminka waxaan wax degmadu keentay oo ay hore hay'adda dibadda ka soo timirka iyo weelka yar aragteen bariiska waxa deeq u soo qaaday waa degmada gurmadka waxaan lahayn markaa waa qaylada ugu horeysa wixii aan la soo gaarnay ummadaha wixii kale hay'adda wax bixinayay ee kale wax deeqa bixinayay oo sheegno qaylada baa dhacday waxa ma hayna daymakan tabinayna min walba laha waxaan rajaynaynaa in wax tani ay inta ku koobnaan wax dambeena u soo socdo iyo ma rajaynaynaa waxana weeyaan inta aan keenayna waa inta naas waxbana anagu wax ma waa ninka magaalada keenay kontonka bariiska boqolka timirka ana hay'adii waxa keentay maxay dibadejinta Allahu musta'an waxa kale la socday 20 weel oo maxay hay'adda kartoon weelalka waa arkaysan baydu ku jirtayba inta ana hay'adan ka soo qaadnay 25 firiyo oo bacana waxaan ka soo qaadnay bishacas kaariyoonayaashay waa wax hore lagu shaqeyso dad baan ka soo qaadno dadka waxa u taraan lahaa kullaa wada xumada jirtana waxa ka qabsadaan magaalada kulka joona biyaha ku dhaasamayaan kan oo kan intaayna waxa kale dad kale ahayn marka walaalahayo waxa fiican waxa la keenay alxamdulillah baa la yiraahdaa wixii kale walaalka ku keenay deeqana intuu doonaysa te waa loo soo kaca laba gacmood baa lagu qaataa alxamdulillah baa la yiraahdaa iminka waxaan leenahay odayaashii meesho magaalada warta balaay maanta ma jirtay balaaynta way ka weyn tahay wixii fariina noo dhiibtaana waan qaadaynaa ee qayla dhaanta waxaana way horkacay baa ahayd oo dadkan u soo horkacnay macna degmahaan iyo wixii kale wax dibayeen wixii kale inay soo socdaan malaynana laakiin hadda dadka waxa lagu laba wala ooyo sida loo kala Italian waa la isku turaa soo loo kala Italian waa loo soo sida baahida gaarka loo qabana waa la isku turaa ummad oo dhani haddaba sida faraha bay tahay nin qadayo caaw karsan iyo nin karsanayn iyo nin iska dhigsan booleen hadda isku naxariis la dhexdin hadda dhexdin isku naxariistaan ilaahay cirku noga naxariisan baa naxariistu dhexdeena hadii laga waayana waxa nagu dhacaya ma taqaanaa maxay ilaahay naxariistu waxa dhanbaa imanay laakiin naxariista qofka Itaalka yar qofka daada qofka gablanka qofka ciidu gareeni gargaarku soo soorto u kala horeeyo marka la dhahay waayo iminka in yaro kooban bay dhibtu ku dhacday aqalkii dumay aqalada kale waa wixii caamkeed walahaydeen baa iskuulka waan walaalena ku dheregsan iyo ku dherig waan walaalena dhakhtarkuna waan walaalena MCH inta waxay nooga baahan yihiin gurmadkoodi oo inuu ka maqnayn xitaa inuu ma askar ebaysi maya dhakhtarka waxa la leeyahay iskuulkana waa ka caruurteenu u dhiganaysa marka intaas waa fuqaada man ku leenahay dadka kale deeqaha bixiya waxa leeyahay walaa Soomaaliland ka aba dadkii baahidii aan ku soo aragnay wali way taagan tahay qalada ugu sii darana waa intii danta guud dadku lahaa sida dhakhtarka xanaanada hooyada iyo carruurta MCH loo yaqaano iyo iskuulkii hoose dhexe fuqaadan oo qayb dabashu ka qaaday intiba dhibtoodu way taagan tahay dadku abaar ma jirto adduunyo maanta ma jirto laakiin intii gaadhay dhibteedu ma la qabaa waxaan leenahay ninkii wax u gurmanayo way ku furan tahay hay'ad iyo dawlad iyo dadweyne
waxaa kaloo iyaguna halkaasi hadal ka jeediyey qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Saylac iyo xogayaha dowladda hoose ee degmada oo uu helinayay gudoomiyaha golaha deegaanka waxaana dadka ku gubaabayeen inay iskaalmeeyaan waxaana ugu baaqeen Soomaaliland iyo hay'adaha gargaarka inay gurmad soo gaarsiiyaan dadkaasi ay dhibtu ka soo gaadhay roobabka duufaanka watay ka daay deegaankaasi Fiqi Aadan. Maanta waxaan joognaa halkan waxa weeyaan waa magaalada Fiqi Aadan halkaas oo keenay raashin macaawina yar oo aan ka soo qaadnay wasaaradda dibadejinta iyo dowladda hoose ee degmada Saylac iyo ururka Bisha Cas ee degmada Boorama inta ay isugu jirtay wixii yaraa in la diin qaybiyay inkastoo ay ahayd wax la sii diyaariyay aan ahayn ay ahayd emergency case macnaha dib dhacday oo markii la maqlay in la soo orday oo wixii yaray yaalay baa la soo qaaday haddii ilaahay yaraan wixii macaawinay kale ee rajeynayna way idin soo socdaan idinkana maanta waxaan leenahay dadaalka wada aqalada iyo danta guud ee ka hadlay maayirkuna waa wixii naga dhaxeeyay wasaaradda caafimaadka waan gaarsiinayna MCH-ka annagana waan garab taaganahay dawladana waan gaarsiinaynaa iskoolka wadantii guud wasaaradda waxbarashadana waan u sheegaynaa annagana wixii aan ka qaban karno waan ka qabanaynaa idinkana waa wixii dadka ka dhaxeeyay inaad wax nagala qabataan waxaan magacaygu wadahay Farxad Ali waxaan ahay xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka degmada Saylac marka waxaanu leenahay haddaanu nahay deegaankii annagu itaalkay waxa weeyaan annagu waxaan nahay in gudbiyayaal baan nahay waxa weeye dadweynaha iyo dawladda ayaanu dhaxaynaa gudbiyanahay waxaanu leenahay dawladda dhexe siiba wasaaradda arrimaha wasaaradda mataqaanaa ee dibadejinta iyo caafimaadka waxbarashada waxaanu gudbinaynaa u sheegaynaa in hawshoodii halkaa ay taalo dadweynihiina ay ku dayacan yihiin MCH-ka uu bilaa jiinkad yahay qorigii iyo jiinkadiiba israacisay laba maqsin oo ay sida mataqaanaa u qaawan yihiin in wixii yare ee yaalay ee matii alaab ahaa ee taalay ee dawladda mataqaanaa dhooskii dawladda ee yaalay meesha uu ku qoyay soo kale dadka deegaanka ayaa iyaguna uga mahad ceshay gudoomiyaha degmada Saylac iyo waftigiisa deeqda gurmadka ay soo gaarsiiyeen deegaanka Fiqi Aadan taasi oo ay ku tilmaameen inay aad ugu baahnaayeen waqtigan ay dhibaatadu soo gaadhay ay ka soo gaadhay roobabkii duufaanka watay ee ka daay deegaankaasi toddobaadkii dhawaa absiye alaabtii la noo keenay ee dhibaatada dhacday darteed iyo walaalahay noo keeneen ee bariisle ee timirle ee weelle waan gudoonay waana ka mahad celinayna ka mahadnaqayna waa noo keenay mahad ilaahay baan qabnaa waan ku mahadinayna inagana caafimaad Allah idin siiyo saraacan waana niga gudoonay culus riiraash baais walka waxaan todanaynaa dadka walaalahay noo keeneen waan ugu mahad qabnaa waad salaamad tihiin waad ka fiicantiin ilaahayna salaama deeqda walaalay noo keeneen waan gudoonay wixii kale noo helayaan waan uga baahanay waana ka gudoonay wayna la soo gaadhay shaqayaadna waan ugu mahadnaqay deeqda ay walaalahayna soo gaarsiiyeen waa ka gudoonay marka koobaad أنا الحمد لله وحي إلهي كسيو وأنا لقو حمدية دب هدي أو إلهي كوكو كيننا وأنا تشكردون وحي الله كسيو عديد كسيو أنا ولا بشريا واحد عضي ربابكي نمعد إلهي أو نجر راكتي وقت بدن مقنع جرتي هو إلهي ماتا نسيي وإلهي مهدي هذا أنا يوحوي نمعول لمن نقصات هذا له دبتي أو جيستين ربابكي داي مددي دوي oo burbur keenay guriyo burburay dhimasho iyo dhaawacna dad keentay bulshada Fiqi Aadan hadana waa ilaahay mahadi ilaahay hadba sidoo kale waa lagu shukriyaa waxa weeyaan taas oo lagu soo gurmaday oo durba ayna soo gaadhay gargaarkii gurmad meelaha ay masaa'ibuhu ka dhacaan si loo geysan jiray gurmadkii loo geysan jiray meelaha ay ka dhacdo masaayibo si kastaba ahaatee gurmadkan ayaa noqonaya gurmadkii ugu horreeyay gaadhi deegaankaasi Fiqi Aadan ee ay ka deeyeen roobabka duufaanada watay waxyeeladana soo gaarsiiyey meelo ka mid ah goobaha caafimaadka iyo waxbarashada iyo guryihii ay deganaayeen dadka ku nool tuulada Fiqi Aadan ee degmada Saylac.